ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiin waa idin salaamaya waxaan leeyahay Ramadaan wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanoga dhigo dambi dhaaf iyo mataqaana raxmo iyo kuwa naartan laga xoreeyo Allah nagu daro fursadan qaaliga waxaan rabaa in ugu faa'iideysto ugu hambaleeyo ciidamada dawladda iyo macaawisleyda dadaalka iyo nafurida ay sameynayaan inaan ugu hambaleeyo dagaal hadii uu yimaado dhimasho iyo dhaawac oo imaanayaan inta dhimatana Allah naxariisto Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryana inta dhaawacana Allah caafiyo runtii dadaalkooda iyo geesinimadoodana waa runtii waa bogaadinayna dagaalka lagu jiro al-shabaab ama argagixisadana waxaan aaminsanahay anaga inuu waajib yahay in laga difaaco dalka maxay la wadadaan ogoleyn ummadda Soomaaliyeed ka been sheegay diinta islaamka dhiiga muslimka barnaystay xilli ramadaana oo barakaysan dadkii dhibaateynaya barakicinaya مواقفتنا كسابسن شبابك أما القاعدة أما عد كستو دولة كسور جدنا وقرأ ودتنا أن اسم بدلين ولقينا سيد الأوجي هنا ما أنت عيد مدى الدولة تيرانكم يرى هبنكم يرى لكن دجالك الدولة هذا وخلادات كدعاية عن الصحن عيدا كنا ودالا يعني وحنا إيمانا عدو قلفت جيس إنه كفائدة خللك أما ما له دون دلالة إنه كفائدة إيمانيسا marka waxaan aaminsanahay ciidankaas inay geesiyaal yihiin ay waayeen waxay u baahnayeen oo garab istaagaha inay waayeen ayaan aaminsanahay laakiin runtii dad u bareeray inay naftooda u huraan dawladnimada Soomaaliya shabaabka xoreeyaan argagixisada dalka inay yihiin aan aaminsanahay sidaas waxa lamid ah macaawisleyda ayaa lamid ah iyaguna oo runtii la garab istaagay walaalahooda ciidamada qalabka sida wixii karaankooda ah ku mahadsan yihiin ayagana inta dhimata Allah naxariisto inta dhaawac Allah caafiyo dagaalkii waa socdaa waxaana muuqata in ay la yimaadeen qorshooyin cusub oo ay ku wiiqayaan ciidamada kula wareegaan deegaano cusub oo runtii aad iyo aad aan uga xunnahay nasiib darro ma muuqato qorshe ku aadan oo arintaas hor istaagi kara ma muuqato marka dawladda waxaan ugu baaqaynaa inay fadhiga ka kacaan mas'uuliyadooda gutaan maxay ahaato qorshe dhameystiran oo lagu wiiqaayo cadawga laguna istaajinayo ugu yaraan horu socodkooda inay la yimaadaan ciidamadu waxay u baahan yihiin dadka dhintayna in laga warqabo kuwa dhaawaca in laga warqabo qalab ayaa gubanaya hubaa la weynaya waxay u baahan yihiin in maxay ahaato bedelkiisa la helo maanta dawladda falilah alxamdu hubkuma yara waa dawladdii intii hadda wax soo dhismayeen hubkii ugu badnaa iyo dawladda ciidankii ugu badnaay dawladdii fursadda u hesho waaye marka qabiil algaxisa lama dirir karo waxa la dirir waa dawlad qabaa'ilku waxay ka qayb qaadan karaan inay caawiyaan ciidanka ay qaadan karaan marka in ciidanka abaabulkiisa dib loogu laabto la geeyo meel dib loogu abaabulo waxa tirada badan oo xamar wada jooga oo cid la hadasho la waayay xerooyin loo sameeyo meelaha istiraatiijiga la dejiyo taliyaal fiican loo sameeyo maxaan ku iraadaa dib mataqaana loogu celiyo goobaha dagaalka ayay u baahan tahay waxaana muuqata inaan dadaal lagu bixinaynin arrimahaas runtii waxaan u aragnaa nasiib darro waxyaabo aan waxba ka imaanaynin oo aan waxba ku soo kordhinaynin dagaalka ayaa mararka qaar moodaa in aad loogu mashquulo runtii annaga weligeena talaan ka bixinaynay haddana waa ka bixinaynaa laakiin hadda waxaad ogtihiin talada waa la isku dhibsaday waa la isku dhibsanaa laakiin yaalkeeda haddaad hadda tala bixisana waa lagu dhibsanaa haddaad aamustan waa lagu dhibsanaa annaga iska daayay dawladihii waaweynay oo ciidankan dhismihiisa iyo qalabeyntiisa iyo dawladnimada Soomaaliya waqtiga ku bixinayay ayaa yani xogta ay soo gudbinayaan iyo talooyinkooda lagu eedeeyay oo mataqaana aan lagu dhowrin marka annaga de hadda warkaas hadalkeenu ma yaalo meeshaas runtii aadan ugu xunahay dawladihii maanta in la guuleysto oo shabaab laga guuleysto aad ugu dadaalayay talooyinka amniga waligoodna waa soo gudbi jireen haddana waa soo gudbiyeen in la yeelo inaan la yeelin waa wax kale laakiin in lagu eedeeyo arrin fiican ma aha waxaan aaminsan arrintaas waxay u muujinaysaa inaan maxay ahaato la fahamsanayn calaaqaadka arrimaha dibadda iyo sida uu muhiim ugu yahay in laga adkaado cadowga dawladahaas waxay qayb ka ahaayeen in laga adkaado shabaabka door weyn ka qaateen dawladnimada Soomaaliya maanta meesha ay soo joogto qayb weyn ku lahaayeen marka waxaan runtii aad uga xunnahay
in ereyo noocaas ay soo baxaan oo caburintii iyo ra'yiga kale diidmadiisu ay gaarto yani xadkaas ay gaartana aad aan uga xunnahay waxaan rabaa inaan dul istaago fariimaha amniga oo laga yaabo dowlado saaxiiba inay soo gudbiyaan in loo qaato wax dhab ah lagu howlgalo si wixii laga digay aysan u dhicin ujeedada digniin laga leeyahay waa intaas fariin amnina waxa ku soo diray cid ku danaynaysa oo aan jecel inaad guuleysato ka guuleysato cadowga inaan dhibdhicina soo dirta marka inaan dhinacyo kale loo fasirin ay aad iyo aad ugu fiican tahay marka waxaan soo jeedinaynaa fariimaha amniga in loo qaato kuwa rasmi inay yihiin lagu howlgalo wixii laga digana inaysan dhicin lagu dadaalo intaas ugu muhiimsan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba in la garab istaago ciidamada qalabka sida iyo macaawisleyda dowladana waxaan leenahay la imaado qorshe la ku taageero oo la kala shaqeeyo waxaan nasiib daraha runtii iyagoo og in abaabul ay wadaan oo buundooyin ay dhisanayaan oo webiga ay dhexmarayaan oo ciidamada xagga ay u kala gudbinayaan inay mataqaana wax dhaqaaqa sameeyeen ciidamo u baahan gurmad in loo gurmo waaye kuwa u baahan qalab in la siiyo in qalabka la sii waaye mataqaana marka waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabaha keena in oo ciidanka niyad jab ku dhaco ay ku adkayso waayaan marka waxaan leenahay ha loo istaago arrintaas aad iyo aad u mahadsantiin